أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaynu aan doonayaa inaan in yar ka taataabto saddex qodob oo ku jira maaliyadda xafiiska arrimaha dibadda saddexda qodob waxay daaran yihiin sidii loo isticmaalo iyo bal maxay ahayd halka maaliyaddaas ay marto number 1 ka waxaan u maleynayaa waxaynu ka bilaabi doonaa kharashka ku baxa safaaradaha ama qunsuladaha Somaliland ee dibadda lacagta ku baxda waxa weeyaan oo miisaaniyada ugu jirta waa 10 bilyan oo Somaliland shilling marka aan ku dhuftay maxaa ahayd sarifka maanta bankiga Somaliland waxay isku taagtay maxaa ahayd 1 milyan iyo 30 هذا 1 مليون يصدق كاس وحويان سفارتها Somaliland baa loogu talagalay in maxaa haydin lagaga shaqeeyo lagu furo dadana waxaan maxaa hayd ayaamahan oo dhan baaritaan ku jiray bal safaaradaha ay noo furan iyo safaaradaha aan ay noo furnayn waxaan soo ogaaday inay wadamada aan imaka xusi doono inaanay safaaradi ka jirin waa France, Germany, Norway, Ireland, Austria, Denmark, Switzerland, South Africa, Finland intaasoo dhan horta inta aan hubno oo aan soo ogaanay imaka aan xogteedii soo helnay waxa weeyaan maba ka furna waa meelihiina ay maxay ahayd lacagta ugu farabadan ay nooga iman jirtay waxaan haddana eegay bal meelaha ugu haboon waa safaarad markaynu ka hadlayno waxaynu ka hadlaynaa meesha ama astaanta Somaliland ay ku taalo wadankaas markuu qofka ajnabiga uu safaarada soo booqdo waxa weyn qof soo booqday madaxtooyadii Somaliland oo kale marka waxa weyn adigu waad garanaysaa guriga haduu walaalka maanta ku soo booqanayo waxa weeyaan waad qurxinaysaa wad hagaajinaysaa safaaradu laftirkeedu waxa weeyaan bilicdii wad muraayadii maxaa haydiyo daaqadii Somaliland marka weynay meel haboon oo qurux badan ay ku taalo safaaradaha adduunka meel gooniya baa loo qoondeeya oo maxaa hayday ku yaalaan oo ilaalahoodii quruxdoodii bilicdoodiiba laga muujiyo waxa iigu ajaayib noqotay horta laba safaaradood bay noogu muhiimsan laakiin mid baa ka sii muhiimsan waxa inta UK da inoogu taala ta UK da inoogu taala waa lacagta ugu farabadan in ay ku baxdo haddana waxay ku taala meesha ugu xun oo ay safaarad ama xafiiska ba furnaan karaayo waxay ku jirtaa meel ay wadaagaan 120 qof oo maxaa hayd bacmishtri oo waxa kale ba maxaa haydin lagu isticmaalo meel ku haboon oo safaarad ahaan inoogu haboon oo astaanteeni ay maanta maxaa hayd ku baadilnaato maaha ogowna waxa ay ku baxdaa waa 10 bilyan oo Somaliland shilling xawayna 1 milyan iyo dheeraad oo maxaa haydin dollar takale aan haddana aan aad iyo aad u la yaabay waxa weyn saduuqeena aqoonsiga aqoon raadista orda bariyaha meelu maqalnayba cid aqoonsi raadinaya iyo cid maxaa hayd ka sheekeynayaba aqoon raadiska iyo meesha degan iyo waxay soo qabteen iyada sanduuqaasu waxa ku jira 1 milyan iyo 500 iyo 740 kun oo dollar waxa weyn waa 1 milyan iyo maxaa hayd 600 kun oo dhowdhow sanduuqa waxa lagaga sameeyo iyo meel aqoon raadis laga galay iyo maxaa ahayd wadan la tagay iyo shir la qabtay iyo wax la qabtay meelina ku maqalnay waxaan jecelnahay inay wasaaradda arrimaha dibadda ay nooga waranto halka maxaa ahayd lacagtaas martay xabada saddexaad ee mucjise ay ku noqotay waxa weeyaan kaalmada xafiiska qurba jooga iyadana waxa ku baxa maxaa ahayd lacag 200 oo kun oo dhowdhow xafiiska qurba joogu waxaanu eegnay maxay hay'adiin adduunyada halku ka furan yahay waxaanu eegnay qurba jooga iyo dadka uu la shiro iyo meelaha uu maro waanu la'anahay maaha yana la moodin inaan wadaniyo kaliya aan weydiinay dadkii maxay ahayd oo kulmiye dadkii ummadii oo dhan baan weydiin maxay ahayd muwaadiniinta Somaliland dibadda jooga qof alla qof ka maxay ahayd war ka haya xafiiska qurba jooga aan ahayn maalinta qurba jooga Somaliland yimaadaan ee dabtana xafladda cashada loo sameeyo waxa markaa mucjise ah waxa weeyaan anigu maaha waxaan anigu iska sameynaya waxa weeyaan miisaaniyada
ay baarlamaanku baaskareeyeen ee maxay ahayd wasaaradda arrimaha dibadda intii aan imika ka hadlayeen waa tan oo aan Soomaali aan maxay ahayd dollar aan idinku maxay ahayd bedelay waana idin siin doonaa idinkaana markaa dabeetana bal maxay ahayd si falaaqayn doona haddii Ilaahay dhaho waxa kale ee xusid maran mudan maalintii dhaweyd safiirkeeni South Africa ba maxay ahayd la wareystay had wanaag wareysatay waxaan xog cajaayib halka ka soo baxay halka wuxuu noo muujiyay number 1 in liisankii maxay ahayd in safaaradda lagu furi lahaa ay detaalay ilaa waqtigii daahir yaalo laakiin aanay Soomaaliland marna maxay ahayd aanay ka faa'iideysan xiriirkana uu markay aragtay inaanay maxay ahayd Soomaaliland interested ba ahayn oo uu soo dhaqaaqay wada ay South Africa-na inaga niyad jabtay waxa xusid mudan inay markii ay wafdigii South Africa halkan ay yimaadeen ay ballan qaadeen inay caawin doonaan maaha xukuumadda Soomaaliland maaha inay sanduuq u furi doonto horumareed oo dhaqaale maxay ahayd xukuumadda Soomaaliland laakiin ay caawin doonto oo garab sanduuq horumareed oo dhaqaale ay u sameyn doonto xisbiga kulmiye waxa haddana halkaana nooga soo baxaysa xisbiga kulmiye ba dawlad maxay ahayd meeshan xukuumadda Soomaaliland mise madaxtooyada iyo xukuumadda iyo wasiirada iyo madaxweynaha ba xukuma sidee bay ku noqotay inay dhaqaalaha maxay ahayd iyo garabka dhaqaalaha ee la furaayo ay kulmiye loo fura halkii laga caawin lahaa maxay ahayd xukuumadda waa mid mucjiso ah waa wax inoo cusub waxay noqonaysaa in haddaan aan wadan hayna kuna wadamada weydiino miyaa talo waa yaab waa wax cusub oo inoo yimi oo cusub waxa kale ku xiga waxaan AU-da maanta waxa ka furmay shir weyn AU-da waxaynu waqtigii daahir yaala aynu lahayn observer status banu lahayn waanu tagi jirnay xagga sare maxaa la fariisan jiray waxa maxaa ka socday waxa laga hadlayay waxa la dhageysan jiray inamadeena ama safiirkeenu markuu maxaa ahayd laga soo baxaya hortiisa albaabka istaagi jireen dadka isbari jireen maxaa waraaqaha qaybin jireen way la fariisan jireen coffee bay la cabi jireen maanta cid u tagtay iska daayo wasiirkeeni dhama maba joogaba maba hadal hayama cid kale oo hadal haysaana ma jirto waxa markaa maxay ahayd aanu la yaabanahay maalintii dhaweyd wasiir ku-xigeenkii wasaaradda arrimaha dibadda wuxuu jawaabay gudoomiyaha Cabdiraxmaan Ciro wuxuu yiri maxay ahayd waxba kama oga xafiiska arrimaha dibadda isagoo oo hadalkiisii wata wuxuu haddana ku sii daray waxaanu imika ka nimi wadanka Malaysia oo aanu maxay ahayd ila dhaqaale aan ka soo furinay wasaaradda arrimaha dibadda goormay noqotay wasaaradii ganacsiga goormay noqotay wasaaradii maxay ahayd horumarinta dhaqaalaha goormay noqotay maxay ahayd wasaaradii maaliyadda waxbaanu u diranay oo wadanku u dirtay oo loo idmay inay aqoonsigeeni ay noo raadiso inay caalamka Soomaaliland ka daadajiso weer xageebay martay wasaaraddaas ma waxa isku soo qufishoon inay dhaqaale raadiso waa mid aad iyo aad aan uga xunnahay waxa aan jecelahay inaan maxay ahayd aan ku soo gabagabeeyo oo aan jecelahay kulli way ka jawaabi doonaan bas ay ugu jawaabaan ba aanu ka sugaynaa waxa weeyaan Soomaaliland maxay ahayd meel kasto oo aanu aqoonsi ka raadin lahayn maxay ahayd cidi ma inaga soo xidhin inaka iska soo xidhnay gaabiska aynu gaabinayno ba inaga soo xidhaysa gaabiska aynu maxay ahayd aanaynu dhinacna u dhaqaaqayn baana maxay ahayd sababta ay maanta Soomaaliland halka ay joogto ay taagan tahay xabada ugu dambaysa waxa weeyaan the Somaliland Development Fund waa sanduuqa horumarinta Somaliland meel alla meel ay miisaaniyadda kaga taalo anagu ma garanayno waan ka waynay malaha ana il duufay bal hay noo sheegan laakiin anu waan ka waayay miisaaniyadeena dawaad haysan wad eegi doontaan anu waxaan rabaa inaan ogaano bal lacag ahaan imisa sanduuqa ku soo maxay ahayd ku soo shubma xageebay martaa maxaa lagu fuliyaa ila sanduuqaas waxa weeyaan sanduuq loogu talay maxay ahayd horumarka Somaliland where does it go
account keebu ku shubma marka maaliyadu ku shubma haduu ku shubma maxay u soo bandhigi waayeen marka horumarku ku shubmaaye maxay ahayd ganacsiga meel uu yaalo lacagtaas meel lagu sheegayana anu waan la ahay marka waxaan jecelahay inay wasaaradda arrimaha dibadda iyo maaliyadda iyo ganacsiga inta badan maxay ahayd ku wada shaqeeya inay noo sheegaan maxay ahayd horumarka sanduuqa horumarka Somaliland ee adduun weynada oo dhamay lacagta ku soo shubto lacag fara badan inay ku soo shubato sidoo Saad inoo sheegay markii uu wasiirka bal imankana halkeebay ku dambeysay meesha ay marto na aynu ogaano waxa xusid mudan oo ku soo gabagabeynaya in Somaliland maanta inta dab shidata iyo inta qadda iyo inta wax cunta inta qadda ee aan dab shidan ba fara badan maanta meel kasta oo eegtid dan yarti markuu sixir bararki marna kor u baxay marna hoos u dhacay ba intii yareed ay ka dhaxelayeen ay ka dhax baabaaday inta dukaan inta booshari inta meel xidhantay ee maanta indhaha isku xidhatay way fara badan tahay laakiin haday maxay ahayd maalin kasta aynu duuduub aynu ku ansixino oo aanaynu eegin lacagyahan fara badani meesha ay marto wax weyn mushaakil hal ogaadana miisaaniyada qaranku waxa weeyaan cashuurta dadweynaha laga ururiyo waa cashuurtaad idinku bixisaan hadaad wariyaal tihiin waa cashuurtan anigu bixiyo waa cashuurta inanta maxay ahayd tamaandada iibinaysa ay bixiso waa hilibluhu intuu bixiyo waa ka xoolaha qale ay intuu bixiyo waa lacagteeni meesha ay marto taasna inaynu maskaxdeena ku jirto markasto oo inuu xisaabteeda aynu doondoono oo aanaynu fadhiisan baa looga baahan yahay wassalaamu calaykum